shir jaraa'id uu qabanayo madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir jaraa'id uu shacabka kula hadlayo ayuu iminka qabanaya insha Allah taala goordhow la socdaya. اوكي سامع اوكي بسم الله الرحمن الرحيم ساعدنا حتى نجوله وصلي لحق محمد حميد مو waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii ay ku jiraan dabaaldeg ka soo bilaabatay guushii xalay lagu doortay inaan madaxweynaha dalka Soomaaliya noqdo guushaasna waan aaminsanahay inay tahay guul ay iska leeyihiin shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay tahay guul ka bilaabatay Soomaaliya midnimadeeda saan u sheegay xalay waxa weeye guul runtii la dagaalamay suuqa وأقول كشغال دولة وناك تصور كل سنة دولة من النقطة دولة آمنة عدالة كشغال صح أو سنة كسبور كأه بعد ما تنتهي دبلتجينا يوم يوم كستاسو صباحين إن كستول أي شيء هو قاعد يبعثها هنا العري وحين مرة استعملت هلا بعد وحن ربا أنا نقعد سنة يا إن فهمتان كان بينك وقت ماضي وحد اللوج بيا حل شقو ودونا إن دولة إن شاء الله دولة يراهدو شعب الصومالي إني بلابان إني كور شقيان أو شعب يسير ولا كنسولنا يسير يسوق دولة دينا لكن تبالدقي إنه الماضي أو لجوجيو وحي حتى قدم بيا بنا بحيدان يصبحان محايا اللي كان بينكي وقت الماضي واد بوليستين وحي أهتين واحشين حلبانا شرفت له وين المقلين درينكين واقعتين وين كل شقيين درينكين محيا له وحي دورتين عدة أهربتين وحن قعد سنة يا وأن وقت عندما أوقفت شركة جرائد إن ولا ريالو جوجسان صباحا والجزات كانت كتكتان وبويه هنا تكون نقطان وهوليه هنا أدب كون نقطان وحن ربا إن كهلو أهمها وراها واد ogtihiin inay xoolihii iyo dadkii ay la'aanayaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba oo awoodi kara inay ku tabarucaan walaalahooda baaba'aya oo xoolaha iyo xoolahooda iyo noloshooda iyo beerahooda ay ka baaba'een waa inaan isu gurmano waa inaan isu naxariisano insha Allah waxaan rajaynayaa dadka waliba khaasatan qurbaha jooga inay ku soo tabarucaan hay'adda gargaarka abaaraha oo culimadu isu xilqaameen oo ay wadaan campaign-kaas ay ku aruurinayaan dhaqaalaha si dadka waalahooda oo baaba'san oo dhibaataysan ay wax ugu qabtaan ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan tacsi u diro Allah u naxariistay Janaac Cadde Muuse oo shalay ku geeriyooday magaalada Dubai Allah u naxariisto jannadiisa naxariistiisa Allah siiyo cayladiisa iyo qaraabadiisa iyo asxaabtiisana samir iimaan Allah ka siiyo habeen wanaagsan